nabad haddii la waayo wax waliba waa dumaan nolosha qiimaha ugu badan islaamnimo marka laga yimaado waxa koowaad ku xiga waa nabad dhaqaaluhu waa burburaa diintu waa burburtaa cibaadadu waa xumaataa dembigu waa fududaadaa dagaalada iyo colaaduhu markay dhacaan xagga alle dadku waa ka jeestaan nabaddaa cibaadata allah intay nabadi joogto ayaa dadku cibaadaysanaya intay nabadi joogto ayaa dadku tijaaraysanaya intay nabadi joogto ayaa dadku wax baranaya nabadday wax waliba ku xidhan yihiin walidaalika ilaahay markuu u manno sheeganayay quraysh muxuu ugu manno sheegtay liilaafi qurayshin ilaafihim maxaa ku xiga rixlata shitaa'i wasayf ilaahay wuxuu yidhi alladii أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله قاچنا يدين كقوديي لبدي سفر تجارة يدين سيي أمننا يدين سيي ضدكو يدكو احترامه عربية دو اسمه لسيبا وحل لها هل كان هو بيت الله الحرام وحلو مدره نكا أبها دي لها دو صوت لا عربين فحاولين جرين تكسوبة حيال لسو لما تجي جرين إذن reer maka ilaahay wuxuu ugu manno sheeganaya uu leeyahay war nabadna waa idin siiyey waxa cuntaan iyo dhaqaalena waa idin siiyey nabi ibraahimna labada buu ugu ducaynayaa nabi ismaaciil iyo xaaskiisii haajara iyo qoladu meesha cidada ee laba degaanka dejiyey ducada koowaad quraanka ku soo aroortay nabi ibraahim ambiyada ducadoodii koowaad ee ibraahim taasay ka warramaysa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad siiyo iyo arzaaq thamaraadka iyo midhahaasi إن الله سبحانه وتعالى هو أرزاق بالمصطلح الحديث وحين ورنكرنا قضية سياسية واقتصادية بقدعية وأنا بتقليه ذا يوم مدى دقرانشية هذه إيوه برادة هذه برواقة هذه وأنا يسمح لي أن أنت بدن نبض دقالها في عنك